Dhammaanteen waxaynu wada ognahay in Faransiisku ku suntan yahay gumaysi, Islaam naceeb iyo siraac aan dhammaanin oo uu kula jiray Islaamka. Haddaba markii ay duuntay dowladdii Islaamka ee Cuthmaaniyiinta, Faransiisku wuxuu meel cidla ah ka helay wadamada dhaca waqooyiga Afrika oo Algeria ay ka mid tahay, wuxuuna xasuuq u geystay in ka badan 1 milyan oo reer Algerian ah. Laakiin dhinaca kale, kaale aan ku baro qisada halgamaa reer Algerian ah oo lagu magacaabo Lala Fatma Nsumar oo ciidamadii gumaystaha Faransiiska jiif iyo joogba u diiday. Balse intaa ka hor, fadlan like iyo subscribe ha igala bakhaylin. Qaada hal ilbiriqsi oo kaliya oo taabo gambaleelka. Fatuma Nsumar waxay ahayd gabar caan ah oo ka soo jeeda buuraleyda Kabylia ee Algeria, oo gaashaanka u daroortay ciidamadii gumaystaha Faransiiska ee ku soo duulay Algeria, iyadoo hormuud u noqotay kacdoon iyo dagaal looga soo horjeedo ciidamadii gumaystaha Faransiiska. Waxayna jebisay xeerarkii dhaqan siyaasadeed ee xilligaas jiray. Waxay nolosheeda u hortay halgankii xornimo-doonka ee looga soo horjeeday qabsashada ciidamada Faransiiska ee Kabylia iyo guud ahaanba Algeria. Sida lagu sheegay warbixin nolosheeda ku saabsan, waxay dhimatay sanadkii 1863 iyadoo 33 jir ah, kuna xiran xarun lagu magacaabo Zawiya al-Cisawiya oo ku taalo mandiqada Tapalat ee gobolka Kabylia. Waxaa lagu qabtay goobta dagaalka bishii Luulyo 1857, waxaana gacanta ku dhigay mid ka mid ah saraakiishii dabadhilifyada u ahaa ciidamada gumaystaha Faransiiska oo lagu magacaabo General Yusuf. Waxaa la sheegaa inay u dhimatay murugo kadib dilkii walaalkeed Sidi Tarr oo gacanteeda midig ahaa, laakiin xaaladaha xun oo ay ku jirtay muddadii 6 sanada ahayd oo ay ciidamada gumaystaha Faransiisku hayeen ayaa sabab u ah dhimashadeeda. Fatuma Nsumar oo magaceeda dhalashada uu yahay Fatuma Saciid Miziani, waxay ku kortay buuraha Kabylia oo ah gobol taariikhi ah oo ay ku nool yihiin qabaa'il dagaalyahano ah oo ku nool waqooyiga Algeria oo ku taalo wadnaha silsiladda buuraha Jurjura, waxayna ka timid tuulada Warja ee gobolkaasi Kabylia. Si kale ama qadar rabbaani ahaatayaaba, kadib amarkii boqorkii Faransiiska Boqor Charles, Faransiisku waxa uu bilaabay qabsashadiisa ballaaran ee Algeria oo idil sanadkii 1830, waana isla sanadkii ay dhalatay Fatuma Nsumar oo ku noqon doonta Faransiiska laf dhuun gashay. Algeria waxay sii ahayd maxmiyad Faransiis ah ilaa ay ku dhawaaqday madax-bannaanideeda Julaay 1962. Fatuma Nsumar waxay ahayd gabar dagaalyahan hogaamiye ruuxi ah oo ku reebay raad maskaxda taageerayaasheeda iyo cadowgeeda si isku mid ah. Markii la eego muuqaal ahaan, waxay ahayd gabar qurux badan. Quruxdeeda iyo xaragadeeda waxay ka koobnaayeen ereyada maansooyinka bulshada Barbarka ee caanka ah. Kalarka indhaheeda kulan ayaa la sheegaa inay la mid ahaayeen timaheeda tidcan ee dhaadheer. Laakiin sidaasoo tahay, weligeed ma aysan noqonin waxa ugu muhiimsan nolosha bini'aadamka. Tolo waa maxay? Dabcan weligeed ma aysan guursan, hooyana ma aysan noqonin. Taas beddelkeeda ma aha oo keliya inay saaxiib la noqotay shanqarta seefta iyo baaruudda qoriga, balse waxay ahayd hogaamiye ciidan oo khabiir ah. Naanaysteeda Fatuma Nwarja oo ku qoran luqadda Kabylia, gabadhii laga helay sifooyinkeeda ayaa loo bixiyaa magacan oo kale ilaa qarnigan 21aad oo aan ku jirno hadda. Waxay Qur'aanka Kariimka iyo diinta Islaamka ku baratay macadka Zawiya oo aabaheed uu lahaa xilli aan gabdhaha loo ogoleen fursadaha noocan oo kale ah. Waxayna taasi u sahashay inay xoojiso dareenkeeda falanqaynta oo ay ruuxdeeda ku nafaqayso diinta Islaamka. Fatuma Nsumar oo ka soo jeeda qoys ehludiin ah oo geesinimada lagu yaqaano, ayaa la siiyey magac sharfeedka Lala oo calaamad u ah ixtiraam gaar ah. Waxay waayihii dambe u wareegtay tuulada Sumar oo astaan u noqotay halganka wax iska caabinta reer Kabylia, waxayna ku biirtay kacdoonkii 1850 ee uu hogaaminayay Shariif Boubakla oo furo u noqday bilowgii kacdoonkii lagu diidanaa gumaystaha Faransiiska ee soo galay buuraleyda Jurjura ee gobolka Kabylia. Algeria waxay noqotay dastuur ahaan Faransiis 1848, laakiin dadka reer Algeria ma ahayn kuwo isdhiibay oo waxay sii wadeen halgankoodii xornimo-doonka. Kaliya gobollada Constantine, Oran iyo dhulka furan ama Plains waxa loo yaqaan afka qalaad ayaa gacanta cadowga Faransiiska ku jiray. Faransiisku inay Kabylia galaan ma ahayn mudnaantooda koowaad, waayo Kabylia waa gobol buuraley ah oo ay adag tahay in si fudud lagu qabsado. Taasina waxay fursad dahabi ah siisay dagaalyahanadii reer Kabylia intii Faransiisku ay ku mashquulsanaayeen duulaanka qeybaha kale ee Algeria. Akhiiran, Faransiisku waxay go'aamiyeen qabsashada Kabylia kadib dhimashadii taliya Boubakla oo ku shahiiday shirqool ay fuliyeen calooshood u shaqaystayaal maxalli ah 1854. Hoggaanka ciidamadana waxaa la wareegay inanta da'da yar ee Fatuma Nsumar.
inkastoo ay aad u hubaysnaayeen haddana ciidamadii Faransiiska waxa wiiqay xeeladii xariiftinimada lahayd ee Fatoumata Sumar. waxaa ka mid ahaa guulaheeda kuwa ugu waaweyn dagaalkii Faransiiska lagu qabjabiyey ee Hout ee ka dhacay mandiqada Tarzouk Juun 1854. muddo 2 bilood ah Fatoumata Sumar oo madax u ah 5,000 oo dagaalyahano mujaahidiin ah oo ku qalabaysan seefo iyo midyo fudud ayaa ka faa'iideystay dhulka buuraleyda ah, waxayna si baan u jabiyeen 8,000 oo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Faransiiska oo uu hogaaminayay taliye Charles Wolfe. laakiin nasiib darro sumcadeeda kama aysan shaafin xaqiiqda. mujaahidiintii reer Kabylia waa laga tiro iyo awood batay kadib markii Brasabkii Algeria oo Faransiis ahaa Alexander Rondon uu amar ku bixiyay in 35,000 oo ciidamo dheeraad ah lagu xoojiyo qabsashada Kabylia sanadkii 1857. nasiib darro halgamaa Fatoumata Sumar waa la qabtay oo waa la xiray isla sanadkaas. taasina waxay dhurbaaxo ku noqotay halgankii wax iska caabinta. inkastoo qabrigeeda oo ku yaala waqooyiga Algeria uu noqday goob caan ah, haddana sheekadeedu waxay si degdeg ah uga baxday xusuusta dadweynaha reer Kabylia. waxay ahayd in ka badan qarni kadib markii 1995 haraaga qabrigeeda loo wareejiyey qubuuraha El Aliya ee Algeria ee fagaaraha geesiyaashii shuhadada reer Algeria.